السلام عليكم كسر دو برنامج كين امتحانها هاي عالم كجينكا حلقة دي سيلبات حاسد لماذا إبليس مركي انت صون معاها هاي آذن يحاول يسوق درسنتي أول السيا أيا إبليس حاسدي ابن عباس وحال لجوري إنه إبليس مجعيسو أفك سريان جوكوها عزازيل أفك عربي جنا وكويا هاي الحارثو أما الحارثو وحنا إبليس لوجو بحي قوس شذا ورم حتى إلى كقوستي أو إرجع إبليس وحاوكي مداري يأسو معناه هذا قوس الشق حاسد ما وحال هذا إنه قف الدون إنه نمعينك وإلهي قف كلاسية وايو وانا isugu mid qofka waxaastay in nimcooyinkaas isaga ku wareegaan iyo in kale ujeedkiisuna waxa weeye in kaas nimcooyinka la siiyay uu waayo waana u qooriwaa marka xaasidku wuxuu rabaa inuu isagu ilaahay u taliyo oo uu maamulo isagoo doonaya inuu isaga nimcooyinkaas ilaahay siiyo inta kalena uu qadiyo waxay Abu Daawud iyo Ibn Majah ka kala wariyeen Abu Hurayra iyo Anas inuu Nabi sallallahu alayhi wasallam yiri xaasidnimadu waxay qofka xaasidka ah xasanaadkiisa u cuntaa si lamid ah siduu dabku qoryaha u cuno kale sidaas darteed ayuu Iblis wuxuu ahaa midka khalqiga ugu horeeyay oo كبرنا أو حق إسكال وينادا القردوبي وحو يري صوبت كبير كيس وحي هيد سقو مدحوها ملائكة السماء الدنيا أو أحسمدا إنه صحيحتا تضبط السماء أوه صيصا يسولدان كيدا يسولدان كأرلك بوحوها ملائكة كود أوه اجتهاد بدن أوهنا علم بدن وحونا معمول جري أنت السماء يا أرلك أوه حيسا مركز وحو يسكو أركي إنه مدحي هاي ونعثيم وين هاي تاسا يانا أصابت إنه كبرو مركز إلهي عاسي وأمر كيس ديدي سيداس دراديد أيوها دو قفك يدن بيغنيك كدعا وكبير كيمد نينكاس كرجبيل حتى عاصنمي iyo amar diido ka timidna ka rajo qab intuu Iblis Ilaahay caabudayay sidaas ay Iblis madaxtinimada iyo kibirka naftiisa u galeen oo ay ugu sugnaadeen kuna xasileen Ibn Abbas wuxuu yiri Iblis waxa uu arkay inuu isagu ka sareeyo oo ka deeqtoonaado malaa'ikta oo sidaas uu yiri aniga isaga منها وآدني أنا كخير بدن القردوبي كتاب كيسا وحاوكو شيغي إنو إبليس عابده إلهي سيديتا كن أوسانو إبليس أو الباب كتشانا دا يميدي مركي إبا وأبوري آدن واكي ملايكتا أمري إني أسجودان إبليس نواكي عاسيي إلهي نواكي كفوغي نحاريس تيسا شانادو نواقيب كميدا نحاريس تا إبا كما نتشري أيو أما كما وارا يقف إلهي عاسيي هذا بسواشي سويدين تمدن وحاوي سيدي إبا مركي أو نحاريس تيسا كديري إبليس أو هادنا آدن يحاو شانادا كتشرا وغوتاقي ونوغا شاكي geedkii laga xarimay Iblis waxa uu yimid albaabka jannada isagoo isku soo yeelay muuqaal oday 300 sano jira oo ah sanooyinka adduunkan 300 sano wax soo caabudayay halkaas uu ku sugay qof jannada ka soo baxa oo aadan ka wareysto markaas waxa soo baxay shimbir la yiraahdo Al-Duwasa oo ah shimbir dhulka ku nool oo aan duulin markaas uu Iblis waxa uu ku yiri xageebaad ka timiday wuxuu shimbirkii yiri waxaan ka yimid beerta iyo jannada aadan Iblis waxa uu ku yiri haye warkiisa isii wuxuu yiri wuxuu ku sugan yahay xaaladda ugu fiican iyo nolosha ugu fiican jannada dhexdeeda ayuu daal la'aan iyo farxad ku nool yahay aniguna waxaan ka mid ahay kuwa isaga u adeega Iblis waxa uu yiri intaad jannada igelisid ma ii geyn kartaa shimbirkii waxa uu yiri oo adigu kuma tahay wuxuu ku yiri waxaan ahay malaa'ikta la yiraahdo al-karubiina waxaana u sidaa naseexi iyo waano shimbirkii waxa uu ku yiri hadda waxaad u tagtaa radwaan oo ah malaga maamula ama hayfraha jannada Iblis waxa uu yiri waxaan doonayaa inaan iyaga ka qariyo shimbirkii waxa uu ugu jawaabay qarintu ma noqoto naseexo Iblis waxa uu ugu jawaabay anigu haddaan madaxda al-karubiina nahay sirta ma sheegno marka haddaad jannada igelisid sidaan ku leeyahay waxaan ku barayaa duco aadan dabadeed duqoobayn oo aadan cirroole noqonin weliga shimbirkii waxa uu ku yiri ma karo ama ma awoodo inaan jannada ku galiye waxaase ku tilmaamaya abeesada markaasay abeesadu jannada uga soo baxday waxayna Iblis ku tiri markuu weydiistay inuu jannada galiyo sidee baan ku galiyaa iyadoo uusan ridwaan ii ogolayn wuxuu ugu jawaabay anigu waxaan isku rogayaa ama aan noqonayaa riix oo ah dabayl markaas waxaad igelisaa miciyahaaga dhexdooda markaasay abeesadii sidaas yeeshay kadibna ay afkeeda isku xidhay waa awood eebe markaasuu Iblis waxa uu ku yiri kadib markay jannada sidaas ku gelisay waxaad u tagtaa sajaratul birri geedka baarinimada markaas yeeshay oo geedkaas agtiisa tagtay xeeladaas ayuu Iblis albaabka jannada uga galay markaasuu aadan iyo xaawa u yimid wuxuuna ag istaagay geedka baarinimada wuxuuna ku heesay cuudka la fuufo isagoo abeesada afkeeda ku dhex jira markaasay aadan iyo xaawa abeesadii u yimaadeen oo ay heesta cuud ka dhageysteen iyagoo u malaynaya inay abeesadu heesayso markaasuu Iblis wuxuu labadooda ku yiri soo dhawaada iyaguna waxay yiraahdeen waa la naga reebay oo u dhawaanshaha geedkaas markaasuu Iblis ooyay una baroortaasoo labadooda calool xumaysay sidaas ayuu Iblis wuxuu ku ahaaday kan ugu horeeyay ee baroortaama ooya markaasay waxay ku yiraahdeen maxaa ka ooyinaya Iblis waxa uu yiri waxa la ooyaa anigoo labadiinaba daraadeed u barooranaya sababtuna waxay tahay inaad dhimanaysaan oo aanad nimcooyinkan ku sugnaanayn markaasay labadoodii waxay ku yiraahdeen oo dhimasho maxay tahay wuxuu yiri waxa idinka tagay ruuxda iyo itaalka xubnuhuna dhaqdhaqaaq ma yeelanayaan ishuna way arag gabi
dhegtuna wax maqli mayso markaasuu hadalkaas naftooda wax geliyo oo markaas kurboodeen markaasuu ibliis nacladda ilaahay korkiisa ahaatee wuxuu yidhi siday noo sheegtay aayadda 120aad suuratu daaha aadanow ma ku tusiyaa geedka waarida iyo xukun aan gaboobayn haddaad taas doonaysid ayuu yidhi geedkan ka cun markaasay waxay labadoodiiba yidhaahdeen cunida geedkan waa lanaga reebay markaasuu ibliis waxa uu yidhi idinkama reebin rabbigiin geedkan waxaan ahayn idaynaan noqon laba malag ama aad ahaataan kuwa waara ibliis wuxuu labadoodaba ugu dhaartay inuu naseex u yahay waaninayana markaasay labadoodu ilaahay ku dhaariyeen inuu yahay mid u naseexaynaya markaasuu u dhaartay sidaas ayuu ibliis wuxuu ku yahay kan ugu horreeyey ee been ku dhaarta iyo midkan ugu horreeyey wax khiyaanay markuu ilaahay ugu dhaartay ayuu wuxuu yidhi kiineebaa cunidda geedka ka hormaraya oo kan kale gacanta sare ka yeelanaya markaasay xaawo xabad midhaha geedka ka cuntay kadibna ay aadan u qurxisay oo ay u faanisay ilaa uu isagu ka cuno waxayna u keentay 3 xabo waxayna tiri anigu xabad ayaan ka cunay wayna dhadhan macaanayd wax dhibaataana male markaasuu aadan dib uga joogsaday cunidda geedkan una sugay 100 sano markaas kadib ayuu iyadu xabadaha haysatay ka qaatay xabadna waa afka gashay intuusan xabada uu afka gashay dhadhankiisa ina dhuunta gaadhin ayaa waxa madaxiisa ka duulay taashkii u saarnaa oo ay ku dheehnaayeen luuliya yaaquut waxaana loogu dhawaaqay oo lagu yiri aadanow khasaaradaada iyo murugtaada way dheeraanayaan isla markaasna waxa hoostooda ka siibtay sariirtay saarnaayeen oo sariirtii waxay labadoodaba ku tiri waxaan ka xishoonayaa ilaahay inaan kuwa amarkiisa diiday sariir u noqdo waxaa kaloo labadoodaba laga siibay dharkii ay xidhnaayeen aadan iyo xaawo waxay geedka uga cuneen iyagoo malaynaya inuusan axadna ugu dhaaranin ilaahay been waxa intaas dheer inaan beenba la aqoon waxay tahay waxa intaasoo idilka muuqata siday noo sheegtay aayadda 22aad ee suuratul acraaf inuu ibliis aadan iyo xaawo afka iyo si toos ah ula hadlay waxa kaloo la wariyay bal wuu waswaasiyey wuxuuna ku baadiyay awoodda ilaahay siiyay siduu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay shaydaanku wuxuu uga socdaa dhasha aadan meesha dhiig uga socdo waa xididade wada hadalkii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo aadan markuu aadan geedkii laga reebay dhawaanshihiisa cunay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala la hadlay wuxuuna ku yidhi isagoo canaananaya imtixaanayana aadanow samo aysan ahayn waxaan kaaga baneeyey jannada dhexdeeda kuwa waasic ah oo kaa kaafiya geedkan aadan wuxuu yidhi haa rabbiyo waxaan ku dhaartay cisadaadii laakiin waxaan u maleeyey inuusan axadna kuugu dhaaranayn been oo taasay igu xambaartay inaan cuno eebba wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay cisadayda iyo jalaannimadayda oo ah weynayntayda waxaan ku dejinayaa arliga halkaasoo aadan ceeshka ku kasbanayn si dhib badan oo daal miiran ah mooyaane markaasuu aadan isdulleeyey oo cudur daartay markaasuu eebba ku yidhi deris la noqon maayo mid icaasiyey oo amarkayga diiday ee ka bax markaasuu aadan wuxuu xaqa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahay ku weydiistay inuu u dambi dhaafo markaasuu eebba wuxuu ku yiri xaqiisa ayaan kugu dambi dhaafay laakiin lama darsay qof amarkayga diiday